bedeli lahaa kii labada goor muddada loo kordhiyey daadad dadku barakiciyey baar dheere dalagii beerahana kala tegey meelahee ugu darantalow xagee ugu daran lagama dhihi karo daadadku waxay saameeyeen dhammaan dalagyadii ku yaalay beeraha inta badan lasu diyaarinaya bisha barakaysan oo rabadaan dalagyada ka soo goo dadku inuu ka faa'iidaysto ayaa wax alla wixii ku yaalaya daadadkii la tageen باكستان god macdanta laga qodo dumay baa dad ku leedeen wararkii ciyaarahan iyaguna meesha ka maqnayn soo saaraha barnaamijku waa caga yaraan Axmed Nagaashiin oo idin la socodsiinaya duhur wanaagsan saaxiibayaal waa tahay dhegeystayaal qodobadaas oo faahfaahsan ah inoo dambeeyaan bal marka hore warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo studio London fadhiya Cabdixaafid mahadsanid Axmed Nagaashe madaxweynaha Iiraan ayaa sheegay haddii uu Mareykanku ka baxo heshiiska nukliyeerka inuu wajihi doono iscilkaambi taariikhi ah hadalkan ayuu Mr. Rouhani ka jeediyey muuqbaahiyaha qaranka Iiraan iyadoo uu xogayaha dowladda Britain Boris Johnson uu u socdaalay Washington si uu madaxweyne Donald Trump ugu qanciyo inaanu Mareykanku ka bixin heshiiskaasi xilligii uu Trump u qabtay heshiiskaasi ayaa ku eeg toddobaad kadib toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ayuu Trump hogaamiyayaasha Faransiiska iyo Jarmalka u sheegay in heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan uu aad u dabacsan yahay kuuriyada waqooyiha ayaa ku eedaysay Mareykanka inuu daandaansi wado kadib markii uu sheegay inuu cunaqabataynta aan laga qaadi doonin Pyongyang ilaa ay faraha kala baxdo hubka nukliyeerka waxa kale oo ay sheegeen in Washington tushuush ay ku furayso jawiga marka ay ciidamada keenayso gacanka kuuriyada waqooyi si joogto ah ayay u weerartaa Mareykanka laakiin toddobaadyadii aynu soo dhaafnay weeraro gaar ah ayay ku qaadeen Donald Trump inkasta oo la qorshaynayo in ay labada hogaamiye ee Washington iyo Pyongyang ay kulmaan warbixintii ugu dambeysay ee ka soo baxday kuuriyada waqooyi ayaa lagu sheegay in aan kulanka labada hogaamiye noqon doonin mid sahlan waxaa ka bilowday dalka Lubnaan doorashadii baarlamaanka oo aan dalkaasi lagu qaban ilaa sanadkii 2009 waxa ayna ahayd in 40 sannadoodba mar la qabto baarlamaanka ayaa muddada kororsaday 2 jeer iyagoo marmarsiyo ka dhigtay dagaalka ka socda dalka ay dariska yihiin ee Suuriya iyo inay wax ka bedelayaan hanaanka doorashada ee dalka dadka ka faalooda siyaasadda Lubnaan ayaa sheegay in dib u dhacan ay qayb weyn ka yihiin musuqmaasuq baahsan oo dalka ka jira dhaqaalaha oo baaba iyo adeegyada bulshada oo aan jirin sidoo kale dalka Tunisia waxa ay qabanayaan doorashooyinkii dowladda hoose markii ugu horeysay tan iyo intii xilka laga tuuray Zaynal Abidin bin Ali sanadkii 2011 oo uu ka curtay kacaankii guga Carabta ilaa iyo waagaasi dowladda hoose waxa maamulayay mas'uuliyiin ay dowladdu magacowday doorashadan ayaa loo arkaa fursad lagu xoogeynayo dimuqraadiyadda ay ku socoto Tunisia iyo in dowladaha hoose lagala xisaabtamayo adeegyada ay dadweynaha u qabtaan dad ka badan 5 milyan oo qof oo reer Tunisia ayaa xaq u leh inay codeeyaan laakiin waxaa laga cabsi qabaa inaanay da'yarta badankoodu ka qayb qaadan doonin doorashada iyagoo ka niyad jabsan horumarka dhaqaalaha dalka oo aad u liita waa kuwan qaar ka mid ah dadka codeynaya oo ra'yigooda dhiibanaya أكيد نحن كتير مبسوطين بعد 9 سنين dhab ahaantii waynu faraxsannahay kadib 9 sannadood waxa aynu dib u dooranaynaa waddo cajiib ah waxaanu rajaynaynaa in doorashadani ay noqon doonto mid cadaalad ah ننتخب وعم ننتخب بكل ديمقراطية وإن شاء الله بتكون الانتخابات نزيهة halka aad warkaasi kala socotaana waa BBC London laanta af Soomaaliga ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa dowladda Sacuudiga ku eedeeyay inay kumanaan kun xabsiga ku hayaan muddo dheer iyadoo aan la maxkamadayn xog laga helay wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa muujinaysa in maxaabiis ka badan 2300 ay xabsiyada ku jiraan iyadoo aan maxkamad la soo taagin qaar kalena ay jiraan inay 10 sannadood in ka badan xabsiyadaasi ay ku jiraan xukun la'aan amiirka talada haya ee dalka Sacuudi Arabiya Mohammed bin Salman ayaa isbedelo cusub oo uu doonayo inuu ku bedelo dalka ku dhawaaqay kooxahan aadanaha u doodase waxa ay sheegayaan in kasta oo amiirku isbedelo samaynayo haddana ay sii kordhayaan dadka la iska xidho ee muddada dheer xabsiyada lagu hayo ugu dambayntiina booliiska London ayaa wada baaritaan dil kale kadib markii wiil 17 jir ah sabtidii lagu toogtay koonfurta magaalada London 60 qof ayaa London lagu dilay sanadkii 2018 badankooduna waxa lagu dilay Tory
tiradii dadkii bilihii februari iyo maaraj london lagu dilay markii ugu horreysay waxay ka badatay dadka lagu laayay magaalada new york sannadkii aynu soo dhaafnay 290 qof ayaa lagu dilay magaaladaasi waa labanlaab marka loo eego dadka london lagu khaarajiyey jimcihii ayuu donald trump cusbitaal ku yaala london ku tilmaamay aag dagaal isagoo u jeeda weerarada tooreyda la isticmaalo ee london ka dhaca intaasina waxa ku eeg warkii dunida aan idinku celiyo axmed gaashe iyo stuudiogeenna magaalada nairobi axmed mahadsanid cabdixaafid cawl ismaaciil ayuu ahaa warkii dunida inooga soo jeedinayay stuudiyaha magaalada london waa tahay dhegaystayaal aan ku bilaabay wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska boris johnson ayaa maanta u socdaalaya washington ujeeddadiisuna waxay tahay inuu isku dayo inuu ku qanciyo maamulka trump in aanu ka bixin heshiiskii nukliyeerka iiraan lala galay muddadii maraykanku u qabtay inuu go'aan cad arrintaa kaga soo saaro ayaa waxaa ka hadhsan toddobaad keliya johnsonna taas ayaa la filayaa inuu doonayo inuu ka hortago oo uu maraykanka ku qanciyo inuu ka noqoshada heshiiska nukliyeerka axmed cabdinuur ayaa warbixintaa inoo haya xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain boris johnson waxa uu tegayaa washington si uu maraykanka ugu booriyo inaysan baabi'in heshiiskii caalamiga ahaa ee loogu tala galay in iiraan lagaga joojiyo inay samaysato hub nukliyar ah dalka u k iyo xulafadiisa reer yurub waxay haystaan ilaa 12 bishan mey inay madaxweyne donald trump uga dhaadhiciyaan inuu heshiiskaasi sidiisii ahaado iyadoo master trump uu hore aad ugu dhaleeceeyey oo uu ku tilmaamay mid aan caafimaad qabin telefoon uu shalay kula soo hadlay ra'iisul wasaaraha britain theresa may madaxweynuhu waxa uu hoosta ka xariiqay sida ay uga go'an tahay inuu xaqiijiyo in iiraan aanay weligeed hub nukliyar ah yeelan madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani waxa uu sheegay in maraykanku uu wajihi doono shallayto taariikhi ah haddii uu heshiiska ka baxo waxaa laga joogaa 15 bilood tan iyo markii uu ninkan mister trump uu awoodda qabtay waxa uu sheegay in heshiiskii caalamiga ahaa uu ahaa kii ugu xumaa ee maraykanku uu saxiixo ebidda waxa uu ku celceliyey in dowladdii hore iyo shacabka maraykanku ay qalad sameeyeen oo iiraan ay khiyaantay iyaga waxa aynu la xaajoonnay 6 dal heshiis ayaynu gaarnay kaas oo maraykankuna uu oggolaaday hadalkiisa oo toos looga sii daayey telefishinka waxa uu ku sheegay in iiraan uu meel u yaal qorshe ay uga hortagto wixii go'aan ah ee uu qaato trump ayna iska celin doonaan heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay kala saxiixdeen maraykanka shiinaha ruushka jarmalka faransiiska iyo u k oo isku dhinac ah iyo waddanka iiraan oo dhinaca iiraan waxay aqbashay inay xadido howlaheeda nukliyarka si taas beddelkeeda looga khafiifiyo cunaqabateenno xagga dhaqaalaha xulafada reer yurub ee faransiiska u k iyo jarmalku waxay isku wada raacsan yihiin in heshiiska hadda jira uu yahay qaabka ugu wanaagsan ee looga joojin karo iiraan inay samaysato hub nukliyar ah qaramada midoobeyna waxay sidoo kale mister trump uga digtay inuusan heshiiskaas ka bixin laakiin mister trump waxa uu ku hanjabay inuu heshiiskaasi ka baxayo haddii saxiixayaashii aanay oggolaan in wax laga qabto cilladaha aadka u ba'an ee uu leeyahay axmed cabdinuur ayuu ahaa kaasi oo warbixinta aynala socodsiinayay dhegaystayaal bal haatanna xagga ayaa lubnaan shacabka reer lubnaan ayaa safaf ugu jira codbixinta doorashadii baarlamaanka ee muddo 9 sannadood ah ka dhacda dalkaas baarlamaanka lubnaan ayaa 2 goor muddada xilka loo kordhiyey taasoo sabab looga dhigay dagaalka ka socda dalka ay ologa yihiin ee suuriya iyo in sidoo kale xeerarka doorashada ee dalka wakhti dib loogu habeeyo loo helo musuq maasuqa dhaqaale dayni la degtay iyo dhibaatooyin ka jira adeegyada bulshada ayaa waxay ahaayeen arrimaha ugu waaweyn doorashadan ololihii doorashadan kuwa xudunta u ahaa cabdinaasir saxad soxo ayaa inoo haya warbixinta doorashooyinkii ugu dambeeyey ee lubnaan ka dhacay waxa ay qabsoomeen sannaddii 2009kii xilligaas oo ay ahayd in 4 sano kadib doorasho kale ay dhacdo balse baarlamaanka ayaa 2 jeer wakhtiga dheeraystay sababtuna waxay ahayd xasilooni darrada ka jirta dalka deriska la ah ee suuriya iyo sidoo kale in isbeddel lagu sameeyo nidaamka doorashooyinka dalkaasi isbeddelkaasi waa la sameeyey waxaana la yareeyey tirada degmooyinka iyadoo qurba joogta loo oggolaaday inay codayn karaan ururka xisbullah oo maraykanka uu aqoonsan yahay inuu yahay urur argagixiso ayaa doorashooyinka ka qaybgalaya wuxuuna doonayaa inuu kordhiyo kuraasta uu ku leeyahay baarlamaanka
ilaa 128 kursi oo baarlamaan ayaa loo tartamayaa guud ahaan dalka. natiijooyinka ugu horeeya ee rasmiga ah ayaa la filayaa inay soo baxaan maalinta Isniinta ama Talaadada. 10,000 oo Lubnaaniyiin ah oo ku nool dalka dibaddiisa ayaa toddobaad ka hor codkooda dhiibtay kadib markii la ogolaaday inay codeyn karaan. nidaamka cusub ee doorashooyinka Lubnaan ayaa waxa lagu saleeyay hab matalaad shacab ah oo isu dheelitiran, taas oo kooxaha Islaamka iyo Masiixiyiinta ay helayaan tiro kuraas oo loo qoondeeyay. Midowga Yurub ayaa sheegay inay Lubnaan u direen kormeerayaal doorashada hubiya hanaanka ay u dhacayso. waxyaabaha caqabadaha ay hadda haysta doorashooyinkana waxaa ka mid ah tirada badan ee dadka qaxootiga ah ee dalkaasi galay markii uu qarxay dagaalkii Suuriya. mahadsanid Cabdinaasir Saxan Soxo. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laantii af Soomaaliga ee BBC-da saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 2:11 daqiiqo bal haatan xagga iyo Soomaaliya. roobabka laxaad kale ee ka daayay dhulka Soomaalidu degta ee geeska Afrika ayaa meelaha ay dhibaateeyeen waxa ka mid noqotay magaalada Baardheere ee gobolka Gado ee Soomaaliya oo daadad ka soo rogmaday webiga Juba oo fatahay waxyeello gaarsiiyeen oo dad badani ka barakaceen guryahoodii. waxaa sidoo kale khasaare gaadhay beero dala ku yaalay. haddaba duruufta dadka barakacay waxaa nooga warantay Quraysho Aadan Cumar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baardheere. Firdawsa Maxamed Cilmi ayaanay u faahfaahisay sida xaaladdu tahay. degmada Baardheere run ahaantii markii uu daayay roobabkii guga ka curtay waxaa dhacday khasaare aad u ballaaran. khasaarahaas oo isugu jiro naf iyo maal intaba, ayada oo magaalada Baardheere saad ogtiinba uu dhex maro webiga Juba ayaa waxaa dhacday go'doon kala go'ay webigii macnaha dadkii deganaa oo labada dhandaan ka deganaa in ay kala go'een, in la isugu maro dooban iyo gaari dameero iyo waxa noocaasa la isugu maro marna la mari waayba. xaggee ugu daran magaalada oo daadadku ay haatan saameeyeen? xaggee ugu daran waxaa lama dhihi karo. Baardheere waxaa saameeyey daadadku waxay saameeyeen dhammaan waxay dalagyada ku yaalay beeraha dhammaan inta badan bayaan ku yihiin dhammaan wixii saarnaa waxay saameeyeen. waxaa la wixii saarnaa dhammaan biyihii saameeyeen. waa lagala baxay matooradii waxna waaba la tageen oo waa qaadeen. waa laga soo gudbay waa laga yimid magaaladii baa la soomaa dalkiiba maxaa ay dhibaataysan waxa la waxay saarteen oo ka qasaareen kala tageen ayadoo run ahaantii la isu diyaarinayo beeraha inta badan la isu diyaarinayo bisha barakeysan oo Ramadaan dalagyada ka soo goo dadku inuu ka faa'iideysto ayaa wax alla wixii ku yaalay daadadkii la tageen. matooradii dadna waa kala baxay rasiinkooda waa heleen dadna waa ku maqan yihiin oo waa la tageen. waxaa kaloo marka dhacay 5 xaafadood oo ku yaala degmada Baardheere 5 xaafadood iyo suuq yare waa laga barakacay. sida awgeed baa looga wada guuray oo dadkii qaxooti u isu bedelay. hadda dhibaatadaas maadaama ay ka dhacday oo saameyntaas aad sheegtay ay ka dhalatay dadkii magaalada halkee ayay maciin bideen? dadkii magaalada waad garanaysaa markaas andaadku soo galaa qolo kor saaran tahay wax dheefna warkeed u soo gurmatayna ma lahan, cid macnaha wax siisayna ma lahan. qoys walba kor saaran yahay qoyskii marka isleeyahay waa naf baa la marka biyihina guryihii way la fadhiyaan. waxaana ka dhalan karo adeeg saan kusii socoto waxyaalaha ka dhalan karo sida macnaha shubanbiyood oo kale malaariyada. daadadka marka guryihiina ku fatahay ma qiyaasteen baaxadda khasaaraha idinka soo gaaray? mar haddii guriga anigu aan deganaa wax alla wixii agab yaalay ka tegay aan carruurta gacmaha ka qabsaday oo anigu aan qoyska dul saarnay waa garan kartaa gurigeeda dibis weeye. wax alla wixii yaalana waa ku baabeen waaba la tagay biyo baa la tagay gurigeena waa iska dibis wiyo waxna waa iska dhagax waxna waa cashaar dadka danyar boodkooda ahaa kii cariirta biyo ka kormareen waaba duma waa la tageen. maadaama dadku ay barakaceen oo dad kale ay dulsaar ku yihiin muddo intee la eg ayay dadku barakacayaal sii ahaan karaan? 130 qoys way dadka hadda barakacay oo dadka kor saaran. hadee biyahaasi waa biyo ay midaan oo intay nasha ka laabtaan xataa dib looguma noqon karo ilaa hadda kadib ay taaro iyo in ay helaan oo gurihii duway la dhiso oo dad nolol helo oo adabkii ka baaba'ay ay helaan. حتى ما قلنا dadkii waxa ay ku leeyihiin waa dhibaato qoyska oo sabaynayaan qoyska laba qoys baa durtaaran. haatan roobabku haddii ay sii socdaan xaaladiina sidee ayay noqonaysaa? wallahi haddaan meeshaan saacin ama quwad weyn oo xoog leh oo macnaha dhibaato aan leerin dhibaato ka iman karta haddii dadku saacin marka xogaa ragtan yaa lahayn oo waxaan ahay waa noqday maanta ku hadlayo adigu waa soo celiyay fatahaadda way soo noqotay qof u moodi kara ma ahan. taasi waxay ahayd Quraysho Aadan Cumar gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baardheere oo waramaysay Firdawsa Maxamed Cilmi. dhageystayaasha BBC-da qaar kamid ah ayaa haddaba aragtidooda ka soo dhiibtay mashaqada halka ka dhacday.
xamde muuse saalax oo joogta magaalada badhan ayaa waxay tidhi aad baan uga xumahay daadadkaa ku soo fatahay baardheere waana in la caawiyaa dadkaas ku barakacay soomaalidu waxay caan ku tahay iscaawinta marka waa in dadkaa loo gurmadaa cabdirasaaq xuseen caaqil oo magaalada gaalkacyo jooga ayaa isaguna waxauu leeyahay daadadkaas ay dadku ku barakaceen ee ka jira baardheere aad baan uga xumahay waana maqaadiir alleh oo aysan cidna waxba ka qaban karin waayo daadadka ka dhasha roobabku waa masiibo uu alla keenay oo uu inagu imtixaamayo waxaana loo baahan yahay buu yidhi in lagu samro waa tahay dhegaystayaal bal haatanna xagga iyo bakistan shaqaalaha gargaarka ee dalka bakistan ayaa ku howlan samata bixinta dhowr qof oo shaqaale macdanta qodo ah oo ku xayiran god laga qodo dhuxuldhagaxda oo ku dumay gobolka baluushistaan ee dalkaas saraakiisha dowladda ee aaggaa ku sugan ayaa waxay sheegeen in dadka ku dhintay shilka haatan halkaa ka dhacay ay haatan wadartoodu gaadhay dhowr iyo 20 qof cabdirasaaq xaaji catoosh ayaa inoo faahfaahinaya meel macdanta laga qodayay ayaa gaas ku qarxay waxa uu dilay ku dhowaad 20 qof deegaanka marwaar oo 45 kilomitir u jirta caasimadda kweta 9 qof oo kale oo halkaasi ka shaqaynayay ayaa dhacdadani ku dhaawacmay kooxaha wax badbaadiya ayaa waxa ay sheegayaan inay isku dayayaan in 4 qof oo meeshaasi ku xaniban oo ay ku duntay ay doonayaan inay ka soo saaraan kadib markii qaraxani gaaska uu soo dumiyey saqafkii kore ee halkaasi ku yaallay xaaladduna aad bay u adag tahay dadka macdantan ka shaqeeya ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen degmada shangaala sida lagu soo warramayo dhacdo kale oo iyadana ka dhacday sbinkaaris ayaa waxaa lagu soo warramayaa in la soo saaray 4 meyd ah oo kooxaha wax badbaadiyey ay soo bixiyeen waxaa kaloo jirta cabsi laga qabo in dad badan oo macdanta ka shaqeeya ay halkaasi ku jiraan oo ay ku xaniban yihiin qarax gaas oo sidan oo kale oo ka dhacay gobolka balushtain 2011 ayaa 40 qof ay ku dhinteen waxaana laga dayrinayaa badqabka kooxaha macdanta ka shaqeeya bishii la soo dhaafay 8 qof oo iyagana macdan qodayaal ah ayaa dhintay ururka ay ku midaysan yihiin macdan qodayaasha shaqaalaha ee dalka bakistaan ayaa sheegaya in 200 oo qof oo macdan qodayaal ah ay sanad walba dhacdooyin noocan oo kale ah ku dhintaan waa tahay dhegaystayaal aad buu u mahadsan yahay catoosho warbixinta haatan dhammaatay nala socodsiinaya waxaa haatan aynu eegi doonaa wararkii ciyaaraha cabdifataax xagayeer oo aad ugu fara dhuudhuubanba haatan stuudiyaha ila fadhiye cabdifataax bal maxaa ugu dambeeyo halkee la kala maraya ciyaarihii axmedow waad og tahay in koobabkii horyaalka ingiriiska kiila liiga lagu kala tegay mogtahay laakiin maanta chelsea iyo liverpool baa isku dhegan oo koobkan premier leaga ciyaar ka tirsankooda dheelaya koobkii maadaama man city qaadatay kaalinta labaad man united ku jirto chelsea arsenal chelsea iyo tottenham iyo liverpool waxay isku haystaan kaalinta 3 iyo 4 marka haddii koobkiiba la qaaday dee guushuule ninka koobka qaadun bay raaci jirtay maxaa nimankan xijiyey 4 kooxood ee ugu sarseersa horyaalka ingiriiska waxay ka qayb qaataan horyaalka weyn ee qaaradda Yurub ee Champions League kaaba loo ordaya markaa kani ku dhaafiyo ayaan ka kale aanad ka hadhin Chelsea waa laga rajo wanaagsan yahay oo Liverpool waa ka rajo wanaagsan oo kaalinta 3 ku jirta waxay leedahay 72 dhibcood laakiin Chelsea rajo soo gashay oo kaalinta 5 bay ku jirtaa Tottenham oo ka koreysay yaa xal laga badiyay waxay leedahay hadaad badis ciyaarahan dambe ugu dambe labada ciyaar dambe oo laga yaabo inaad meel gaarto dhinacan kale la liiga la yiraahdo ee xagga ay Spain iyagana kooxo adag ba ka soo gala horyaalka Yurub iyagana xagee la kala maraya ma lagu kala hagaagay waa lagu kala tagay oo Barcelona qaadatay koobkii balse waxa jiri doonta ciyaarta lagu magacaabo El Clasico waa ciyaartan dhexmarta Real Madrid iyo Barcelona marka waxaad moodaa in labada kooxood ay aad u dareynayaan inkastoo natiijadii ay dhammaatay oo koobkii la qaaday haddana koox walba magaceeda inay ilaashatay doonaysaa waxay leedahay bal Real iyo Barcelona yaa badin doona koox walbana dadaalkaasay wadaa haddii aan sii raaciyo marka dhinacan kale ee Talyaaniga xalay kooxda Juventus waxay qaaday tallaabo aad u wanaagsan kadib marka ay 3 xal kaga badisay kooxda Bologna oo marti u ahayd ciyaartaasna waxa ay ka dhigtay kooxda Juventus in ay 6 dhibcood 7 dhibcood ay ku hogaaminayso horyaalka wadankaasi Talyaaniga laakiin dhanka Premier League waxay ku laabto Axmedow kooxda Stoke City waa la xaqiijiyay inay ka dhacday kooxaha heerka sare ee Premier League waana 12 sano markii ugu horeysay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu cabdifataax xagayeer oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha dhageystayaal bal haatana baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo taminaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdulaahi jaamac mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysana maanta waxaa inaga soo gaartay Shucayb Xaaji Muqtaar oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa
dadka kale ah daahir xaaji mukhtaar iyo luul xaaji mukhtaar waxaana ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalkani kenya sanadii 2000. haddaba haddii ayna maqlayaan daahir xaaji mukhtaar iyo luul xaaji mukhtaar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo shuceyb xaaji mukhtaar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. cabdi xirsi yuunis oo jooga boorama waxa uu baafinayaa faadumo xirsi yuunis waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan liibiya 2010. haddaba haddii ayna maqlayso faadumo xirsi yuunis amaba jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo cabdi xirsi yuunis iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama. basre amiin sheegow oo joogta dalka yemen waxa ay baafinaysaa dadka kale ah ismahaan amiin sheegow, nuuradiin amiin sheegow, cabdow amiin sheegow. haddaba waxaa ugu dambeysay dadkaasi iyagoo ku sugan dalka suudaan sanadii 2006. haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo basre amiin sheegow iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. hani muuse yuusuf oo joogto burco waxay baafinaysaa leyla muuse yuusuf waxaa ugu wardambeysa iyadoo ku sugan etoobiya 2009. haddaba haddii ayna maqlayso leyla muuse yuusuf amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo hani muuse yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama. cabduqaadir cabdulaahi kuus oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah maxamed cabdulaahi kuus iyo ruqyo cabdulaahi kuus waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka liibiya sanadii 2002. haddaba haddii ayna maqlayaan maxamed cabdulaahi kuus iyo ruqyo cabdulaahi kuus amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdi cabdulaahi kuus iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. cali maxamed cabaas oo jooga boorama waxa uu baafinayaa maxamed maxamuud cabaas waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jabuuti 1992. haddaba haddii uuna maqlayo maxamuud maxamed cabaas amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cali maxamed cabaas iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama. saciid cali guutaale oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah nuur cali guutaale, maxamed cali guutaale, mursal cali guutaale, canab cali guutaale iyo ayaan cali guutaale. waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2003. haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo saciid cali guutaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka yemen. hibo jaamac axmed oo joogto boorama waxay baafinaysaa hodan jaamac axmed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan xerada qaxootiga ee kaakuma. haddaba haddii ayna maqlayso hodan jaamac amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo hibo jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama. cali dhuxulow kulmiye oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah xasan cali dhuxulow, saynab cali dhuxulow iyo shamse cali dhuxulow. waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2002. haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cali dhuxulow kulmiye iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka yemen. ifraax maxamed aadan oo joog burco waxay baafinaysaa shaadiyo maxamed aadan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada nairobi 2011. haddaba haddii ayna maqlayso shaadiyo maxamed aadan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo ifraax maxamed aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. bakar busuri amiin oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah xamza busuri amiin, saalax busuri amiin iyo maano busuri amiin. waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada marka sanadii 1993. haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo bakar busuri amiin iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. sacdiyo cusmaan xaashi oo joogto burco waxay baafinaysaa roodo cusmaan xaashi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan etoobiya 2005. haddaba haddii ayna maqlayso roodo cusmaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo sacdiyo cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco.
abanuur cabdow suufi oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah shaakir cabdow suufi cabdalla cabdow suufi amiin cabdow suufi warda cabdow suufi iyo leyla cabdow suufi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada marka sanadii 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo abanuur cabdow suufi iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen xasan axmed maxamed oo jooga berbera waxa uu baafinayaa hodan cabdulaahi axmed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka maraykanka 2005 haddaba haddii ayna maqlayso hodan cabdulaahi axmed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xasan axmed maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay berbera cabdiraxmaan ciise nuuraani oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah maxamed ciise nuuraani shukri ciise nuuraani iyo sahra ciise nuuraani waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada marka sanadii 1996 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdiraxmaan ciise nuuraani iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen deeqa xasan yuusuf oo joogta burco waxay baafinaysaa sabaax xasan yuusuf waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan jabuuti 2010 haddaba haddii ayna maqlayso sabaax xasan yuusuf amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo deeqa xasan iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco shiro dhaqane muuse oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah cabdinaasir dhaqane muuse iyo cabdinuur dhaqane muuse batuulo dhaqane muuse waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada beledweyne sanadii 1999 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo shiro dhaqane muuse iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen cawo bashiir ibraahim oo joogto burco waxay baafinaysaa ifraax bashiir waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka sacuudiga 2002 haddaba haddii ayna maqlayso ifraax bashiir amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cawo bashiir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco axmed gaarane guuleed oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah cabdiqaadir gaarane guuleed cabdiraxmaan gaarane guuleed iyo faadumo gaarane guuleed waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada beledweyne sanadii 2006 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo axmed gaarane guuleed iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen xuseen xasan sheekh oo jooga yemen waxa uu baafinayaa maxamed xasan sheekh waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka suudaan 2016 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed xasan sheekh amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xuseen xasan sheekh iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen yaasmiin sheekh daahir oo joogta dalka yemen waxa ay baafinaysaa dadka kale ah boosteeyo sheekh daahir qamarey sheekh daahir iyo xuseen sheekh daahir waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo yaasmiin sheekh daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka yemen mukhtaar maxamed oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah cali maxamed xaashi iyo aadan maxamed xaashi waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan suudaan 2010 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo mukhtaar maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen maxamuud maxamed maxamuud oo jooga buuhoodle waxa uu baafinayaa nimco maxamed maxamuud waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2006 haddaba haddii ayna maqlayso nimco maxamed maxamuud amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maxamuud maxamed maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco cali faarax diiriye oo jooga yemen waxa uu baafinayaa maxamed faarax diiriye waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2009 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed faarax diiriye amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cali faarax diiriye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen baafinta ugu dambeysana waxa ay naga soo gaartay deeqa ismaaciil jibriil oo joogta burco waxa ay baafinaysaa nuura ismaaciil jibriil
waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka libiya sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlayso nuura ismaaciil jibriil amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo deeqa ismaaciil jibriil iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burca baafintina maanta waa naga intaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin asxaabta ayna la socodsiinaysay baafintu waxay noo ballana dhegaystayaal aynu mar kale hawada ku kulmi doonnaa haddii alla hawooda lahayd mooshanta galabnimo markay saacadda geeska afrika tahay inta ka horraysa waa dhammaantay oo dhammaantiin idinle sidaas iyo nabadgelyo